Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkaad iga daawanaysaan waa YouTube channelkayga Cabdalla Muxya. Haddii aad channelka ku cusub tahay, ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta ku xiran channelka. Haddii aad hore u joogtayna, aad baan kaaga mahadcelinayaa sida quruxda badan ay ila socoto, timekaaga u gelinaysa YouTube-ka. Sidoo kale, like-taada iyo commentigaaga iyo share-taada intaba dhiirigelin ayay ii tahay. Waana kuu ogsoonahay. Mahadsanid. Insha Allah caawa ama maanta ama waqtiga kuu tahaba waxaan soo gudbin doonaa qaabka loo sameeyo soor oo cheese lagu daray. Soor sida loo sameeyo maaragta camal loo sameeyay lasagna. TikTok-ga hadda ka hor ka balan qaaday inaan maaragta YouTube soo galin doono. Marka insha Allah maanta halkan kusoo gudbin doonaa sida loo sameeyo anigoo mid u sharxi doono una dul istaagi doono hadduu Ilaahay yiraahdo. Isla socod wanaagsan. Channelka haddii aad ku cusub tahay mar kale ku soo biir oo ka mid noqo asxaabta barnaamij walba oo aan soo gelinayo la socon doonta. Gambaleelkana sii daaro si maaragtay muuqaal walba cusub aad ula socotid. Marka ugu horeysa waxaan sameyn doonaa insha Allah suugadii gaduudneed. Suugadan gaduudan waa tii maaragtay lasaanyada aan u sameeyay camal oo kaleeto. Wax ay ku kala duwan yihiin ma jirto. Marka ugu horeyso hilibkan biyaha ka bixinaynaa. Hilibkan isticmaalaa waa hilib lo ama beef qof walba siduu u yaqaano. Hilibkana maaragtay marka koow biyaha ka saarayna, biyo ma ku dareeno, iskiisoo maaragtay u bislaanaya ilaa biyihiisa uu ka gursado. Digsigaasa ku heenaynaa, biyahaas uu dhalayaa. Marka biyuhu dhalay kaliya intuu ka gursanayo uu kala qaayan sugaynaa. Kadibna maaragtay waxyaabihii kaleetay aan ku dardarsan lahaynaa maaragtay korka ka dareena. Waxaan aan ku daraayo waa subag. Subagaasa maaragtay maadaama saliid aanan hore ugu darin, subagaasa maaragtay saliid ahaan uga dhigaya insha Allah. Kadibna basashii maaragtay aan si yar u soo jarta aan ku dul shubayaa. Intaasaa maaragtay isku gaduudinayaa ilaa si fiican maaragtay basasha ee u gaduudto oo u bislaato. Kadibna maaragtay insha Allah waxaan ku sii dari doonaa wax yar oo tuun ah iyo sidoo kaleete wax yar oo kabsar caleen ah. Kabsar caleenta iyo toonta dhadhan maaragtay iyo caraf u yeeshaa cuntada. Ha ka ilaawin isugu roonow. Kadibna intaasaa maaragtay daboolka sii saari doonaa si ay si fiican isku dhex galaan. Kadibna waxaan ku dul dari doonaa xawaaji allaale xawaajiga haysta ku darso. Kadib si fiican isugu walaaq. Kadibna insha Allah waxaan korka ka dari doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo yaanyo. Yaanyadana maaragtay waa yaanyo aan soo shiiday. Yaanyada iyadoo nool waa ku darsan kartaa. Yaanyada ani laakiin inaan shiidaa jeclahay. Weliba suugada noocan camal markaa sameynaysa yaanyada inaan shiidaa fiican. Sidoo kale kor waxaan kaga sii dari doonaa maaragtay yaanyada sauce maaragtay tomato sauce ee dhahaan. Maaragtay supermarketka lagu gadaa. Meel walba ka helaysaa. Xalaalada xataa waa lagu gadaa oo maaragtay oo Soomaalida ah. Marka tomato sauce-ka ku dareena. Dhadhan oo waxaa ka rabnaa mataqaanaa oo maaragtay oo kaaliska arag inay noo yeelato. Intaas waa kaliya. Kadib daboolkeeda saarayna ayada iskeeda maaragtay isku dhex gali doonto. Wax biyo kuma dareeno. Saas markay u soo maaragtay badbado diyaara laga wadaa ma fahantay. Dabka u gaabinee adiga u yaraan 7 daqiiqo camal ku deynay dabka. Maadaama hilibka uu bislaan yaanyadan ay shiidan tahay, tomato sauce-kana ayadana maaragtay waaba iska diyaar. Marka intaasay maaragtay saasay diyaar ku tahay. Wax kala u celinaysid ma leh. Dhinaca dhiganaysaa. Kadibna maaragtay wax yaroo waxaa sameysanaynaa koosta ah. Koostada maaragtay option waa daarto iska deyn kartaa, daarto ku darsan kartaa. Basalaan si yar u soo jartay. Kadibna yaanyadan ku soo dul shubaa. Yaanyada iyadana hadana waa shiiday. Kadib intaasaa maaragtay si fiican isku dhex gelinaysaa oo maaragtay ilaa ay isku soo bislaanaysaa sugaysaa. Kadibna maaragtay wax yar waxaa ku shubay maraq digaag ah, kabsar, toon. Cabdullaahi aragtaa kabsar iyo toon aragtaa ma fahantay. waa aad u jeclahay. Marka maxaa la dhahaa xawaaji aan ku daray. Xawaaji aan dhahaynay waxaan ku daray wuxuu ahaa maraq jumbo. Kadibna diyaar ku tahay daboolkeeda saaraysaa. Waxaa ku daraysaa koostadii aan korkaga soo daray. Koostada marka biyana ma ku darin, wax kalena ma ku sameynin. Halahaasaa maaragtay aan ku daboolayaa. Kadibna waxaa sameynayaa adiga waxaa sugayaa 8 daqiiqo camal. Intee maaragtay saas ka noqonayso. Diyaar ku tahay. Wabillahi tawfiiq iyadana meel dhiganaysaa. Soortii ugu maana cusbaan ku daray. Soorta markaa mar walba sameynaysid shaxdaaneeta ugu muhiimsan inaad
soorta tartiib ugu dartid hal mar gab hadaa ku wada siisid kuuskuusay kaa yeelanee soortana qaab daree kaa noqonaysaa marka mar walba waxaa sameynaysaa tartiib in yar ku dar adoo walaaqaysid weliba walaaqa iyo markaa ku shubaysta isla socdaan haddii aad hal mar ka boodid ama aad hakad gashid soorta waa isku maaragtay kuuskuusanee qaab dareena kaa noqonaysaa marka ilaa aad kaga dhamaynaysid saasaa u walaaqee markaa dhamaysidna aad ku wadirtid soorta stiil waa sii walaaqaysaa biyaha u malaynin bahashu way soo adkaanee ilaa maaragtay si fiican isaga soo adkaanayso saasaa u walaaqaysaa haddii kale way kaa kuuskuusanee way isugu kaa dhagaysaa wax soor isku dheganna dadka inaa soo hordhigtid lama rabo ma fahamte marka insha allah walaaqa ugu roonaanaynaa ilaa maaragtay ay si fiican uga soo adkaato adeeg zaa'id ahna ma rabno maadaama foornada aan gali rabno foornada ku adkaanaya ma fahamte wax yar ayadoo maaragtay soo yara adkaatay aad ka dejinaysaa walaaqa ha ka joojinin soor sharafteeda waa inaadan walaaqa aadan ka joojinin haddaa walaaqa ka joojisid waa isku dhadhagee kuuskuusayna kaa yeelanaya ma fahamte kuuskuus haday yeelatane soor ma ahan taas magac kaleeto waa inaa u bixisid marka insha allah markay xoogaa yar isku soo yara adkaato aa ka dejin doonaa hadduu ilaahay yiraahdo balse intay kasoo adkaanayso walaaqista ugu dadaalee waa inaa kor taagnaatid sooraga dabka saaraa masquula iska galaa soo adkaato waa ujeedaa sooma sidii hore ma ahan biyihii ma ahan masquula iska aadaa sooraa dabka ii saaran ma anfacayso ma fahante waa inaad dul taagnaatid kadib saas diyaar noogu tahay baaquligaasaa kusoo shubtay baaquliga markaan kusoo wadagediye soorta suugadii haddaad ii diyaarsaneed aan maaragta tartiib usoo shubaya kadibna tartiiba ugu walaaqaya ilaa maaragta suugada aan kaga soo dhameeyo hal mar haddaa ku wada shubtid yacni maaragtay qaab daray kaa noqonaysaa tartiib haddana markaa walaaqaysid hal mar ku wada walaaqin marba dhinac maaragtay adoo kaga walaaqaayo si maaragtay soorta aysan kaaga halaabin insha allah kadib markaa maaragtay suugadaada kusoo wada dhamaysid waxaa noo bilaaban doonta boroseeska xiga kaasoo ah in ovenka loo sii diyaariyo dhaladiyaan soorta kusoo shubtay soorta iyo mar iyo suugadii kadib maxaa maaragta sameynaa isla wada simayaa markaan isla wada simo koostadiyaa maaragta kor kaga darayaa koostada maaragtay inaa dhinacyada gaarsiisidaa lagaa rabaa maadaama koostada ay nagu yar tahay koostada waa badsan kartaa balse maaragta anaga koostada waxaa ka rabna keliya in maaragtay aan dareemno inay koosto ku jirto kadibna cheeskii aan ku dul shabay sidaasaa maaragta dan ku wadaa soor koosto andan kadib maxaa la dhahaa cheese ilaa maaragta soorta aan kaga dhamaynayno adi waxay ii noqotay 4 dabaq camal miyaa ii noqotay marka waxaa sameynaya mar walbo soorta horumarine koostada ku xijinaysaa kadibna waxaa ku xijin doontaa cheeskii ama farmaajadii qofba siduu u yaqaano saasaa ku wadee koostada dhinac walba gaarsiinaysaa si maaragtay bahasha ay u wada gaarto insha allah cheeskana ugu roonow I love cheese aniga hal boxoo cheese cunto ku dar hadii la dhaho diyaara waxaan fahamtay marka qaybta u dambaysa kusoo darnay soortii u dambaysay kadibna maaragtay waxaan kusoo dul shubayaa koostada iidan inta u dambaysay kadibna cheeskii aan kor maaragtay kaga soo wada firdhinaya hadduu ilaahay yiraahdo ovenkana waxaa geysanaysaa 350 Fahrenheit 350 Fahrenheit waxaan u maleynayaa 180 meelahaas camal marka ovenkana waxay kugu jiraysaa 30 daqiiqo maadaama soorta ee maaragtay xoogaa yara jilcan tahay inay adkaataa la rabaa oo maaragtay foornada ay ku dhex adkaato soorta si ay maaragtay kugu adkaatane waa inaad digriiga iska saxdaa 350 Fahrenheit ama 180 centigrade ama centigrade mise Celsius I don't know Celsius waxaa loo isticmaalaa maaragtay waadarka marka insha Allah waa isla sugi insha Allah inta soorta foornada ay nagu jirto waxaa akhrin doonaa qoraal Snapchat kale iiga soo diray waa qiso maaragtay jabkeedana wadata waxaa noo soo diray wiil Soomaaliyeed wuxuu yiri magaciigana qari marka dalabkiisa maaragtay waa woofinayna magaciisa ma sheegeen insha Allah wuxuu yiri Cabdalla aad baan ku salaamayaa walaal adiga iyo family-gaaga waa ka qaada brother wuxuu yiri sheekadan waxayna dhaxmartay aniga iyo yar saaxiibkay ah oo muddo saaxiib ahayn balse sheekadan aan ku sheegi doono waxaan ku waayay gabi ahaanba saaxiibkay
wiil baan saaxiibo ahayn ilaa yaraanteeni dugsi hoose dhexe sare dugsiga quraanka wax walba aan isla aadi jirnay maalin maalmaha kamid ah markii la soo weynaaday maalin maalmaha kamid ah ba wuxuu i baray am uu itusiyay gabar sawirkeedii oo yiri gabadhan baan xiriir ka dalbaday oo way ugu adkeysay xiriirkii ee saaxiib iiga argo nambarkeedan ku siinayaa gabadhii aniga wax aqoon uma lihi meelay degantaa ma aqaan sawirkeed kaliya un baa arkay anigoo intii la yaaban saaxiibkay baa wuxuu igu yiri ma rabtid miyaa inaad saaxiibka u argoosid kadib nambarkii sidii baan uga qaatay gabadhii laba habeen maanan wacin habeen saddexaadkii baan gabadhii wacay waaba qof iska yara degan cod macaan leh sheeka badanna sidaan u sheekaysaneenay bay waxay iga codsatay in sawirkayga aan u diro ayadana keeda ay ii soo dirto ma oga ayada in sawirkeeda aan haayo oo aan ka warqabo meeshay degan tahay magaceeda qabiilka ee tahay kadib sawirkaygii markaan u diray bay sawirkeedii ii soo dirtay waxay noqotay qof daacad ah sawirkii saaxiibkay uu tusay sawirkeeda wuu islahaa sidii aan u sheekaysaneenay muddo ku dhow 6 bilood saaxiibkeen uu weydiinay gabadhii ma la hadashay oo aan dhahayo may lama hadlin waan ka qariyay saaxiibkay sababtoo ah gabadhii dareen baan u qaaday oo waxay noqotay qof ma sha Allah sidii u ahayd gabadhii aan ma aragtay u kulmeenay xiriirkeeni wuxuu isku bedelay jacayl gabadhii jacayl baan ka dalbaday oo u soo bandhigtay way iga aqbashay markay soo dhaweysay familkeedii xataa ay bartay intaas saaxiibkay ma ogo aan waxa sameeynayo sanad amal markay ma aragtay ka soo wareegtay barashadeeni baan gabadhii ka codsaday in ma aragtay aan isguursano familkeedii markaan si fiican isku dhaxgalnay gabadhu isku qabiil baabanaaybo oo ma aragtay waliba isku laf baynu nahay doonashadii markay dhacday baan saaxiibkay u sheegay oo ku dhahay saaxiib gabar baan doontay maanta oo la isoo siiyay hadii aan ku sheegay gabadhaas cid ay tahane waad iga xanaaqi doontaa markaas wuxuu yiri kaama xanaaqay ii sheeg markii aan u sheegay gabadhii isaga nambarkiisa uu isiiyay inay tahay maalinkaas baa saaxiibkay igu dambeysay wuu iga xanaaqay wuu iga cararay meel walbana blog buu iga saaray sidii baan saaxiibkay ku waayay haddaan aan message ku soo diraayo saaxiibtay baa ag fadhisa ani ayadaba 3 caruur ah ayaan heesanaa ma sha Allah marka jabkaas baa igu dhacay Cabdallah saaxiibkeena sidii baan ku waayay aad baan ku salaamaya ka saaxiib ma ahan qof in ma aragta qof la lugooy rabo isna saaxiib والله saaxiibada qaar ma aragtay waxay ku qaldan yihiin in loo sheego wax fiican waa sameysay wax fiican maadaama ma aragtay gabadha guursato hadda xaaskaaga ay tahay ku ag fadhisan iyadana waa salaameena ciyaalkana adeerku waa salaamaya ninkaasna noloshaada iyo ku soo noqonin iskana ilaale qof noocaas camal wuxuu damacsan yahay inuu noloshaada ku soo biiro marka la ku soo noqdo wuxuu doono sameyn karaa marka take care aad salaamaya sheekooyinkiina igu soo diray Instagram-ka jabkiina ma aragtay in xalbaha waxyaabo oo ma aragtay kugu dhacay insha Allah Instagram-ka ama Snapchat-ka intaba qaybta ma aragtay waxaan ku soo qori doonaa in Snapchat-ka iyo Instagram-ka ba description-ka isla socod wanaagsan ma sha Allah alaabteeni sidaan quruxda badan ee noogu soo baxday waxa siita waa cheese-ka sidaas noqday warka alaabtaani xaafadeena zaid loogu jecel yahay waxa soo xasuustay video ina duuba iyadoo baashi haaf la cunay aan daawar video ka duubay baashi intee see camal ciiday marka alaabtaani noogu soo baxday cheese-kii koostadii soortii wixii oo dhan sida ma aragtay waxay noqotay lasagna camal xariijinaya dhamaantiin ina ka wada hesheen oo aad soo sameyn doontaan insha Allah aad idin salaamaya muuqaalka dug soo gaaray ama intaan ba soo gaartay aad kaaga mahad celinaya sida quruxda badan ama aragtay ila socotay time kaagan ii gelisay aad baan kaaga mahad celinaya mahadsanis thank you shukran luqad walba aad qaanida waxaan kugu leeyahay mahadsan tahay jazaakallahu khair waa inoo muuqaalkan iyo muuqaalka xiga iyo anagoo caafimaad qabna haduu Ilaahay yiraahdo isla socod wanaagsan ha ilaawin inaad channel ku soo biirtid iyo channel ku cusub tahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh